haddii aad ka cusub tahay boggan isku day inaad like saarto sidoo kalena inaad follow garayso muuqaalkan la sii wadaaga asxaabtaada. waxaan idinla wadaagi doonaa muuqaal yar oo kooban. muuqaalkaas oo laga qoray laacibka weyn ee reer Portugal waa Cristiano Ronaldo. in badan saaxadda kubadda cagta ku jiray ciyaartoyga kaliya aan isbedelin kubaddiisu 2009 ayuu u saxiixay. Cristiano Ronaldo ka imanaya Manchester United kooxda weyn ee Real Madrid isagoo ku saxiixay mushahar dhan 80 milyan. waxa uu ciyaaray 483 ciyaarood, 450 gool lagu dhaliyay, 15 koobna kula guuleystay. in ka badan 80,000 oo taageerayaal ah ee garoonka Santiago Bernabeu ka soo dhaweeyay laacibkan. Cristiano Ronaldo marka laga hadlayo goolasha ama koobka uu dhaliyay, koobka waaweyn uu dhaliyay goolashii ugu wanaagsanaa waxa uu dhaliyay 27 free kick. sidoo kale waxa gool toos ah muu dhalinin koobka adduunka intuu ciyaarayay. waxa uu dhaliyay 24 gool marka laga hadlayo kubadda free kick ama kubadda xorta loo yaqaano. laacibkan reer Juventus ayaa u muuqda inay dhimayso mushaharka uu ka qaato kooxdaasi iyadoo uga harsan yahay hal saxal ciyaareed. 16 jirka reer Portugal ayaa weli ka mid ah xidigaha kubadda cagta. hal ciyaareed ayaana uga dhiman heshiiskiisii kooxda Juventus halka uu tagi doonaa. sidoo kale dhacdadii ugu layaabka badnayd kubadda cagta taariikhda oo iyaduna ka dhacday koobka Euro, mid ka mid ah sheekooyinkii ugu yaabka badnaa dunida kubadda cagta oo aan idinla wadaagi doono daawadayaal. ciyaartoyga reer Portugal ciyaartii Portugal iyo Serbia ayaa wada ciyaarayeen ciyaartaas oo muuqatay mid indhaha caalamka ay wada hayeen. laacibkan ayaa sidoo kale ku hogaamiyay xulkiisa guulo fara badan kuna guuleystay Euro. garsooraha ayaa daqiiqadihii ugu dambeeyay baajiyay gool u dhalinayay Cristiano Ronaldo uu dhaliyay. Ronaldo goolkaasi oo ka xanaajiyay markii laga diiday, taasi oo sababtay inuu ka baxo garoonka. waxa uu saaray calaamadii uu xidhnaa ee hogaaminimo uu kula hogaaminayay xulkaasi oo ah kabtanka xulkaasi, taasi oo uu ku dhex tuuray garoonka isagoo intaanu ka bixin. mid ka mid ah goobjoogayaasha garoonka ayaa calaamadaasi qaatay iyadoo badanaa taageerayaashu ay isku qabsadaan garamaanta iyo sidoo kale calaamadaha ay bixiyeen ciyaartoydu. calaamadan oo aan micno badan xambaarsanayn markii garoonka uu ku dhex tuurayay ayuu geeyay suuqa xorta ah isagoona xaraashay. waxa uu ku guuleystay in laga siisto qadar dhan 75 euro, 75,000 oo euro. waxaa loogu deeqay ilmo yar oo 6 bilood jir ah oo qalliin u baahnaa. qalliinkii waa laga guuleystay, dhimashadiina waa laga badbaadiyey. waxyaabaha qaar ayaa ka weyn khiyaaligeena ayaa maqaalkan lagu daray. sidoo kale Cristiano ma islaha waa badbaadin doontaa ilmo yar isaga oo khasaaray kana hadhay Euro 21. sidoo kale daawade haddii aad nala socoto si aad noogu xidhnaato boggan annagoo idinla wadaagi doono maalin kasta warbixino joogta iyo dhacdooyinka kubadda cagta markastoo ay dhacayaan. isku day inaad kusoo biirto boggayaga, sidoo kale like iyo follow aad noo saarto muuqaalkana aad asxaabtaada la wadaagto. aad baad u mahadsan tahay daawade.